bulshooyinka ku dhaqan magaalada Elafweyne gobolka Sanaag oo isugu jira aqoonyahanka waayeelka iyo waxgaradka ku dhaqan magaaladaasi ayaa kulan ballaaran oo isugu yimaadeen waxay taageero ballaaran u soo jeediyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxqabadka kala gadisan ee ballaaran uu dalka ka hirgeliyay muddadii uu caynaanka dalkani hayay iyagoona sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ku taageeray hirgelinta mashruuca ugu weynaa ee abid ka hirgala deegaankaasi iyo sidoo kale waxqabadyada kala ee deegaankaasi ka hirgalay geesta kale waxay bulshadani si weyn u taageereen gudoomiyaha uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo baanka dhexe ee Soomaaliland waxaana bulshada hadaladeedii kamid ahaa sida tani sibaarna ka batay waxaan ugu hambaleeynaa sida aad structure-ka dawladeed iyo maamulkiisa u socodsiisay waxaan ugu hambaleeynaa isgaarsiinta dariiqyada ee aad noo samaysay aanu gacanta lagu hayo ugu hambaleeynaa taariikhda ayaa nin waliba wuxuu qabto qoraysa waxaanu madaxweyne haddii wadadaas noo samaysanto magaceeda u bixin doonaa wada Siilaanyo waxaanu hambaleeynaa Cabdullaahi Jaamac Xaaji Jaamac Cali Madoobe Cabdullaahi waxaanu kugu hambaleeynaa xilka qaran ee aad qabatay waxaanu ku leenahay ilaahay ha kuu fudaydiyo xilkani ma aha xilkii koowaad ee aad qabato oo maamul iyo maarayna ka waxaanu si gaar ah kugu sii hambaleeynaa Soomaalilandnimada waayo Soomaalilandnimada ayaa wax qaali ah gaar ahaan waxaan hambaliyo iyo salaan aan u direynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo gaar ahaan isku shaandhayntii iyo isu xulashadii uu sameeyay ayaan iyadana halkan uga soo jeedinaynaa mahadnaq ballaaran iyadoo aanu taa ku darayno inaan madaxweynaha ugu mahad celinayno magacaabista uu gaar ahaan soo xulay Cabdullaahi Xaaji Jaamac oo hoggaan u noqon doona bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland isagana waan ugu hambaliyeynaynaa shaqadiisa waxaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay inuu fududeeyo oo hawshaasi uu la garab galo oo waxa weeyaan uu noqdo mid xilkiisa iyo waajibka ummadda laga saaray ilaahay uu u fududeeyo Jaamac Cali Madoobe oo magacaabay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweynaha badan mahadsan tahay wada siibtay waa nin aqoon u leh bangiyada waa nin khibrad badan u leh waa nin xilkiisa ka soo bixi kara maanta degmada Elafweyne waxa noo farxad ah inaanu halkan uga hambaleeyno salaamo madaxweynaha ama hogaamiyaha Soomaaliland waxaanu halkan si gaar ah uga salaameynaa una hambaleeynaa Cabdullaahi Xaaji Jaamac Cali Qorsheer ama Maxamed halka waxaan isugu nimid dad boqolaal oo reer Elafweyne rag iyo dumarba waa leenahay arrinta aan salaantaan madaxweynaha u soo diraynaa waa naga dhab dadka dhalanteed iyo been baa la isu sheegaa taayadu waa arrin runa waa salaan aad iyo aad ugu dhaahan tahay weji wanaagsan calool fayoon qalbi furan baan madaxweynaha ku salaamaynaa inta kale Cabdullaahi Jaamac Cali Madoobe waxaanu isagana sidaa la sheegay hadal ma hadhin wax la Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hadal laga tashaday ma oran waayo boqolaal baanu nahay waxaanu ku tashanay inaan labada arrimoodba soo salaano adigana inayo reeraha dadka ka dhashay magac iyo manfac loo kordhinaya ninkii ilaahay wax la wado baa guulaysta ilaa waxaanu kaaga baryaynaa ilaahay kula wado Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid TV-ga qaranka Soomaaliland